madaxweynaha Somaliland ayaa tababar sarkaalnimo u furay saraakiil ka tirsan ciidamada Somaliland. Wariyayna Khalid Fantastic ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. mudana madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo kugu soo dhaweynaya kulliyadda ciidamada Cabdilaahi Askar. mudana madaxweyne ku soo dhawow. 20 Noofambar 2019 madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu duleedka magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Daraweyne uu ka daafuray mashruuc weyn oo lagu tababarayo difcadii ugu horeysay ee si rasmi ah loogu carbiyo looguna ilaaliyo inay noqdaan saraakiil ciidan kuwaas oo iskugu jira gabdho iyo wiilal wax ka soo bartay jaamacadaha dalka Somaliland. Munaasabadani lagu daafurayay kulliyadda tababarkani oo ka qabsoomay kulliyadda tababarka saraakiisha ciidamada Cabdilaahi Askar ayaa ku madaxweynuhu kala qayb galay xafladaasi. Sidoo kale munaasabadani ka soo qayb galay xubno wasiir oo ka tirsan golihiisa wasiirada ciidamada kala duwan ee booliska, militariga, badda, asluubta, wasiirka gaashaandhigga. Waxaana halkaasi laga jeediyay hadallo muggeedu iyo miisaankeedu uu ku dheeraro saraakiisha nidaamka yaryar ee iyagu loo tababarayo inay noqdaan saraakiil ciidan. Waxaana xusid mudan ciidankani loo tababarayo saraakiishani inay qayb ka yihiin ardaydii shaqo qaran inay ka mid noqdaan ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. qaar ka mid ah saraakiisha dhinaca tababarka u qaabilsan ciidamadani maanta uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi u daafray ahna madaxda kulliyadaha tababarka oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda iyaguna waxay hoosta ka xariiqeen dadaalka ay ku hogaamin doonaan dhalinyaradan da'yarta ah ee iyagu dalkooda loogu carbinayo sidii ay u noqon lahaayeen saraakiil. waxaana halkaasi ka shaaciyeen in ay dhammaanba u diyaariyeen qaybihii kala duwanaa ee heer waxbarasho. madaxweyne aasaasidii kulliyadda saraakiisha ciidanka qaranku waxay ka dhalatay himiladii oo daraskii iyo aragtidii dheerayd ee taliyaha ciidanka qaranku Sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani uu ugu sahan tegay dhisidii aqoonta ciidanka qaranka, taasoo maanta midhaheedii uu ciidanka qaranku ku naaloonayo. maanta waxa weeyaan waa laba farxadood. farxadda koowaad waa madaxweynihii oo noo furay tababarkii dufcadii koowaad ee layli saraakiisha. farxadda labaadna riyadii rumoobay oo taliyaha ciidanka qaranka iyo hoggaanka tababarka oo marar badan laga hadli jiray iyadoo aan la soo hadal qaadin baa difaaca qaranka in ciidankeena horumarka wuxuu gaari doono marka la helo saraakiil jaamiciyiin. maantana ilaahay una gaarsiiyey taasna waa farxad. taliyaha ciidamada militariga Jamhuuriyadda Somaliland Sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa dhakiisa waxa uu mahadnaqay madaxweynaha Somaliland fikirkan uu keenay ee lagu tababarayo dhalinyaradani. taliyuhuna isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu saraakiishani ku dhiirigeliyay inay dadaalka ay dalkooda ugu jiraan ay halkaasi ka sii wadaan. madaxweyne himiladaadii baa ahayd iyo fikradaadii baa ahayd markii aad aragtay ardaydu jaamacadaha ka soo baxa siday badda iyo tahriib ugu dhammaadeen waxaad keentay madaxweyne fikrad ah sidee baa loo badbaadin karaa dhalinyarada. fikrad cusub oo uguba ayay ahayd in shaqo qaran halkan laga abuuro. dadka qaarkoodna runba umay qaadineen riyay la ahayd. madaxweyne fikraddii aad nagu hogaamisay way hirgashay. marka ugu horeysa waxaan hambalyeeynaa dhalinyarta cusub ee ku soo biirtay fursad u heshay nasiibna u heshay taariikhda noloshooda inta u hadhow dhan ka sheekayn doonta inay noqdaan difcadii koowaad ee noqota leyli sarkaal ee Jamhuuriyadda Somaliland ee waxa weeyaan lagu diirsado inta dambana daba socon doonto. waan u hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu dambeyntii isagu halkaasi ka hadlay ayaa dhalinyaradan cusub ee loo carbinayo saraakiisha u jeediyay khudbad dheer oo ku taxalluqda carbinta xilligani loo carbinayo noqdaan saraakiil ciidan. waxaanu madaxweynuhu halkaasi ka cadeeyay saraakiishan cusub loo carbinayo inay haystaan jidkii qaranka lagu ilaalin lahaa. waa maalintii u horeysay ee hablo Somaliland oo saraakiil u soo diyaar garoobay oo waxaan sheegay inay soo mareen ay soo fariistaan inay ka dhis noqdaan oo la mid noqdaan hawsha qaranka ay u qabtaan. awal hore waa laga horjoogay. waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka layli saraakiisha ugu horeysay inay tababarkooda ku dhamaystaan dalka gudihiisa. qolada shicibka
jaamicadaha warshadaha ganacsiga dhakhaatiirta iyagu waxay idhaahdaan ereyga la yidhahda ethics waxa ka xoog weyn laga soo dheegay oo ethicska ka xoog badan discipline-kuna waa kelmadda istiqaama oo toosnaaday oo wixii bini aadmiga u daran ee xumaynaya ka baydhay wixii u wanaagsanna qabtay qoladiina maanta cusub ee bilaabaysa intaasoo hawla oo hore loo soo maro taariikhooda akhri doontaan oo laydin dhigi doono iyo intaasoo fikradood waxaanu idinka rabnaa inaad ku kordhisaan fikrado cusub iyo dardar cusub iyo kuwii loo aayo ee laga sheegay taariikhdooda inaad noqotaan 34 sano ka bacdi wixii nool haddii ilaahay yidhaahdo waa Khaalid Yuusuf Xasan fantastic wararka telefishinka Somali Cable gudaha caasimadda Somaliland Hargeysa